waxaa jira madax badan oo inala joogta dad badan oo marti sharaf oo kala gedisan dad badan baa waqti u helin halkan sii joogaan waxaan haatan u yeerayaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan hadalkayga ku bilaabo aan siyar dhageysanahay inaan halkan salaan uga diro iyo mahadnaq weyn dadkii ka soo shaqeeyeen inuu caawa halkan iskugu nimaadno waxa labaad oon doonayaa halkan inaan ka salaamo dadkiinan reer Somaliland ee qaranaysan inaan inagana dhammaantiin idin salaamo inaad soo kaliftaan oo inuu halkan caawa iskugu nimaadno inuu fantasiya ka qayb galno dabaaldega qaranka waxa kale oo doonayaa inaan salaan gooniya u diro dadka reer Somaliland amba ee wadanka gudihiisa jooga amba adduunyada dacaladeeda iyaguna ku nool oo rajaynayo inay nagala qayb galayaan ruuxoogu inagala qayb galayo dabaaldega qaranka waxa kale oo halkan ka sida fariin la soo faray oo isoo faray wakiilka sare ee Somaliland u jooga wadanka Mareykanka ee degan magaalada Washington Mr. Bashir Umar Good oo ina soo gaari kari waayay laakiin har ya habeen Somaliland u dadaalaya isaguna wuxuu isoo faray wuxuu yiri salaan qaaliye iga gaarsiin dadka reer Somaliland ee caawa halkan iskugu yimid hadalkayga waan soo gaabin laakiin waxaan doonayaa in hordhaca inaan ku xidho oo raaciyo Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato hadalkaygu waa saddex qodob oo gaagaaban dheerayn maayo kow markay dad meel iskugu yimaadaan ay xusayaan maalin culus oo ballan ay lahaayeen milestone ba ingiriiska la yiraahdo ay leeyihiin ay dadku iskugu yimaadaan laba fursadood bay siisaa fursadda hore waxa weeyi in ay u dabaaldegaan waxay soo qabsadeen iyo natiijooyinka wanaagsan ay gaareen inay u dabaaldegaan waa ta ugu horeysa weeyi taa waynu wada garanaynaa 32 sanadood ee ugu dambeeyay Somaliland wax badan ayaa wadanku qabsaday dadkuna ay qabsadeen anu meelo badan ayaan ka tiriyay inteeda badan amba waxbarasho ha noqoto amba ha noqoto caafimaad ha noqoto amba shaqo abuur ha noqoto ama wadooyin iyo furdada la dhiso ha noqoto iyo airport la dhiso wax badan baynu qabsanay 32 sanadood waana ilaahay mahadii taas fursadda labaad ee ay nasiiso marka dadku meel ay iskugu yimaadaan ay xusayaan waqti waxa weeyi in la eego mustaqbalka la jooga sidoo uu eeg yahay waqtiga la jooga sidoo uu eeg yahay iyo mustaqbalka soo socda sida uu uurayo urta mustaqbalka soo socda iyo dhandankiisu wuxuu yahay marka taasaan doonayaa inaan dhowr amuurood ka taabto isla garana waxaynu soo qabsanay goor walbana in loo dabaaldego la xuso oo la qiimeeyo waa lagama maarmaan laakiin Somaliland maanta waxayna hor yaala amuuro aad u culus oo aynu u baahanahay inaynu u foojignaano saaynaan qaladaad culus oo inaan ka soo kaban karin aynaan u gelin maxaa kamida arrimaha in hor yaala maxaa kamida waxa kamida markaad soo dhaafto waxaynu qabsanay iyo dadaalkaynu keenay markaad soo dhaafto waxa kamida iyada oo aad moodo inay soo ururayso dantii guud ay soo ururayso oo qof walba anu wadanka 2 bilood baan ka soo sokeeyay imika 2 toddobaad dabadeedna waan ku noqonayaa laakiin waxaad moodaa inay soo ururayso dantii guud oo qofku shakhsigu dantiisa self interest una daba ordayay ayaad moodaa waxaad moodaa qabyaaladda waxa la yiraa iyo nacayb iyo cado inay wadankii imika si culus u soo gashay karaahi la iskaraahiyeysta inay si badanayso in qalalaase
wadankii ka taagan yahay dagaalana ay ka socdaan waa halka ugu dambaysa dagaaladuna ay ka socdaan waxayna hor yaala inagu waynu wada qurux badannahay guri aan seexanaan wada haysanaa cuntaan wada cunaan haysanaa caafimaadkii baynu haysanaa laakiin dadkii waddankeenna ku noolaa ee dhabta ahaa waxaa haysata dhaqaale darro xalay ugu dambaysaan la hadlayay Hargeysa xalay ugu dambaysa dhaqaale darro dhalinyaradii shaqo la'aan oo laga hadlayo 57% dhalinyaradu inaan shaqo haysan 75% inaan shaqo haysan marka shaqo daraanta iyo dhaqaale xumadu waxay keenaysaa niyad jab iyo qalbi jab bay keenaysaa hadday taasu timaadana waxay dadku dib uga soo jeesanayaan inay mustaqbalka galaan bay ka soo jeesanayaan waayo waxay mashquul ku noqonayaan danta yare iyaga haysata biyo la'aanta cudurka gaajada ayay mashquul ku noqonayaan taasu markaa waxay dhalinaysaa oo aad moodaa dadkii Somaliland maanta hadda image-ka ilaahay waxaad moodaa reer Somaliland anu dhalinyaradan aad rag iyo dumar ugu dhex jira inkastoo oday weynahay waxaad moodaa inay yihiin ya hangaraaraciyo ya jalhad lagu xidhay oo jalhaduna dusha ka xidhan tahay kolka mid walba inuu ka baxo doonaya jalhadda xidhan ka baxo laakiin ma bixi karaan ilaa jalhadda la furo lama bixi karo oo banaanka uma soo bixi karaan oo naacawda ma qaadan karaan oo fikrado kale ma keenayaan waayo waxay mashquul ku noqonayaan jeelka jalhadda ay ku jiraan ee dusha ka xidhan inuu mid walba ka kala xagxagto uu ku dul joogsado ya uu feedho ayay noqonaysaa marka dambe marka wadankii walaalayaal aan ismaqalnay wadankii dhibaatooyin fara badan baa yaala hadday qarannimadu inaga dhabtahay adaan iska ciyaarayn waxay jaalo wadankii dhibaatooyin fara badan ayaa yaala waxaan toddobaad ka badnayn madaxweynahan uu telefoonka ku wada hadlay uu ii warramay dhibaatooyinka yaala kalidiina waxba kama qaban karo inteena halkaa fadhida haddaynaan isdhegaysanayn oo inaan ballan dhiganayn oo waxay noo tahay qosol iyo sacab la tumuun hadday noo noqoto waddankiina uu sidaa yahay dee labadaasu isma keenayaan marka maxaynu yeelinaa way su'aashu aan soo gabagabeeyay maxaynu yeeli way haddaynu nahay waxaynu yeeli oo aanu ku talinaya dadka aan la sheekaysto oo caawa afkooga aan ku hadli karana oo ah ururada cusub 10 urur ee cusub fariintaana i soo faray waxa weeye marka ugu horeysa in si degdeg loo cadeeyo wadooyinka loo marayo wadada loo marayo labada doorasho ee soo socda degdeg in loo cadeeyo in la cadeeyo waqtiga la qabanayo labada doorasho waqtiga la qabanayo waayo taas waxay soo noolaynaysaa dimuqraadinimada dadkeennana waxay u soo jeedinaysaa inay ka soo baxaan jalhadda afka ka xidhan oo ay banaanka u soo baxaan oo ay ka wada doodaan mustaqbalka wadankoodu wuxuu noqonayo iyo qaybta ay ka galayaan doodaha soo socda doodo badan sheekooyin badan gar badan ayaa soo socota Somaliland hadday 32 sanadood iyo in ka badan sii noolaanayso sii baraarayso doodo cusub iyo gar cusub ayaa miiska taala sida wadanka loo sii dhisayo ee loo sii hagaajinayo markaan waxaan idin leeyahay walaalayaal haddaad tihiin dadkii reer Somaliland ma kala maarmayno ma kala tegayno aynu tartanno aynu wada doodno laakiin waxa weeye waajibku wadankii inaynu isku hayno oo aynu isku qaadno xuquuqda wadanka baahsan in mid walba la isku qaado oo aynu qaranka sii adkayno ayaa ina hortaala marka waxaan idinkaga tegayaa waxaan idinkaga tegayaa waqtiga adag waa la isbartaa
waa la isbartaa waqtiga adag waa la isbartaa maanta waqti adag baa Somaliland hor yaalla marka waxaan leeyahay idinkuna nagu soo raaca doorashooyinkii waa in la galo oo wadankan albaabada mustaqbalka la furo mustaqbalka waa in la furo oo doorashooyinka la galo doorashooyinkuna way kala horeeyaan aniga sida ila tahay intaan ka wakiilkahay waxa uu soo horeysaa waxa weeye doorashooyinkii lagu soo saarayay saddexda xisbi ee qaranka siyaasaddiisa qaban doona 10 sanadood ee soo socda waa kow ururada iyaduna dadkaanu soo Somaliland aanu ka wakiilnahay 10 iyaga urur taasaanu doonaynaa talabaad ee soo raacna waxa weeye doorashadii madaxweynaha iyadana in markaa lagu xigsiiyo oo inta la qabto madaxweynuhuna wuxuu ku ballan qaaday sanadka imika bartanka agaga jirno iyaga soo socda madaxiisa in labada doorasho aynu iska dhamayno haddaynu doorashooyinka iska dhamayno mustaqbal cusub baa inoo furmaya waxa inaga xun baynu hagaajin waxaynu haysanay wanaagsanna waynu sii ilaashan doonaa taasaan idinka ka tagayaa Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh